الإسلام. إلهي هدو إدمو أفرط سنة نقصو آدم هقاميها دولة قبلات كجبلين وحاكوكو ليستي مضانا أحمد محمد إسلام xildhibaanada labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada Jubbaland odayaasha dhaqanka qof kasta oo halkaa fadhiya oo meeshiisa ka qaadanaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka oo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo doorashadan sameeyey oo aan rabo inaan u mahadceliyo kulligood iyo hoggaankii doorashooyinka oo komishinkii doorashooyinka ee isaguna processkan soo daadihinayay guddigii doorashooyinkii xuduudaha Jubbaland iyo guddoonka baarlamaanka oo suurto geliyay inay qabsoonto doorashadan hadda ugu dambeysay madaxweynaha lagu dooranayay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo doorashadaas aanan idiin sheego mas-uuliyadda ay saarteen insha allah inaan ka soo bixi doono waxaa kaloo u mahadcelinayaa musharaxiintii igala qayb gashay tartanka oo iyagana aad ugu mahadcelin doono mahadcelinka bacdi guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii ka soo qayb galay kulligood oo mahadcelinayo waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midnimada iyo wadajirka midnimada iyo wadajirku waa wax muqadas meel looga wareegana ma laha Soomaaliyana maanta waxay maraysaa xaalad u baahan isku tashi walaalnimo isu urxaanasho wada shaqayn midaasaana waxay tahay midda maanta Soomaalidu ay meel ku gaari karayso liibaanteeda adduunka iyo midda aakhira labadabana ay uga suurtoobi karayaan inaan midnimo ahaano inaan wada jirno inaan wada soconno inaan wada tashanno waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta waqti uga baahan yahay ma jirto waxaynu soo maray xilli aad u adag dagaal sokeeye uu jiray xaalado adag ayna soo maray waddankeena waxaa ilaahay mahadiya maanta waxaan ka soo gudubnay marxaladii qabiilka iyo la kala qoqobayay maanta cadowga aan leenahay ee ugu weyn waa shabaab oo u baahan inaan isaga dhulkeenna ka xorayno oo dadkeenna aan isu furno waxa soo raaca ee caqabad inuu noqon karaa waxay noqonaysaa maanta lama odhan karayo qabiil lama odhan karayo koox lama odhan karayo cid kale waxayna soo raaca waxay noqonaysaa keliya innaga oo ay naga timaado isku xidhnaan la'aan midnimo la'aan wada shaqayn la'aan iyo hoggaanka oo khalad inaga galo waayo waxa ugu fiican aan u baahannahay waxaa weeyaan in la helo hoggaan saxan oo hoggaanku ay noqoto inuu qaato hoggaamintiisa isku wadkiisa isu keenista bulshada taasaa markaa waxay noqonaysaa midda ilaalinaysa innaga midnimadeenna iyo wadajirkeenna waayo waan ka soo gudubnay xilligii qabiilka maanta midnimada Soomaalidu waa muqadas Soomaaliya Soomaali baa iska leh
waxa isu keeni kara waa Soomaali waxa taladeena ay ka dhaxaysaana waa inaga shalay waxaynu ahayn 5 beelood waxaa la 4.5 waxaa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan beel lixaad iyo beel 7 Soomaaliya arinteeda waxba kama qaban karayso waxa wax ka qaban kara oo tashan kara oo wax isweydiin kara oo wax isla sixi kara waa inaga waxay la tahay inagu aynu ka shaqeyno midnimadeena iyo wada jirkeena amniga waa muqaddas lagama gorgortami karo inaan amniga ka shaqeyno waa laba huraan haddaan amni weyno nolol ma jirayso aabbaha meesha fadhiya hooyada ka agoonka ka naafada ka shacabka ka ganacsadaha qof waliba wuxuu ku noolaan karaa inuu helo amni iyo kala dambeyn aan ka wada shaqeyno amniga aan ugu tagno shabaabka iyo kuwa inala dagaalamaya meelaha ay degan yihiin waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno dawladaha deriska ah iyo ciidamada amisom iyo cid kasta oo amniga aan wax naga dhaxeeyaan inaan kala shaqeyno amni inaan kala shaqeyno deris wanaag inaan ka wada shaqeyno sidaan u horumarin lahayn amniga isagana kaashan lahayn dagaalka shabaab ee ah urur caalami oo dagaalkiisu uu sidaa yahay iyagana aan doonayno inaan cid walba aan uga mahad celino nagala shaqeyso amniga annaguna aan doonayno insha Allah inaan inta u dambaysa kala sii shaqeyn doono wada shaqeynta waxaan rabaa inaan idiin sheego fulaxantiisa ma mooga khayrooduna waa iska badan tahay haddaan la wada shaqaynina qofna keligii waxa ma qaban karayo waxaan rabaa marka hore inaan codsado inta ay soo dooratay iyo inta odayaasha iyo inta reer Jubbaland inay igula shaqeeyaan waxay ii soo doorteen oo qof waliba uu igu caawiyo kii talaysiin oo tala naasaxay siiyo shaqada aan qabanayo taasi waxay keenaysaa marka inaan kalsooni ku shaqeeyo ammaanada ii dhibteena aan si fiican u guto waxaan rabaa inaan idiin sheego dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawladdii maamuleysay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maniin qolo gooni isu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa waxaan nahay dawlad goboleed xubin ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow u wada shaqeyno ka wada tashano danta ummadda ka wada tashano saan hore ugu socon lahayn iyadoo aan cid inoo dhaxayn inaan annagu wada shaqeyno ka wada shaqeyno waxaan leeyahay soo dhowaada madaxdayadii baa tiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto waxa inaga dhexdeena inaga jira inagu inoo yaallaa instructionna meel kale lagama soo bixin karo cid kalena wax kale inooma yeedhin karto waxaan diyaar u nahay inaan idiin aqoonsannahay mas-uuliyiintayadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodii baa joogeen insha Allah inay mar dhow yimaadaanoo dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalena shaqeeyaan lana wada shaqeeyo Jubbaland waxay ku dhisan tahay laba xaalo iscaafis isasaamax iyo wada shaqeyn markii ugu horeysay dhisaynay waa la garanayaa buurihii la kala saaraa waxaan gaadhnay inaan qof walba ugu tagno ridda uu joogay ka soo saaro u yeedhno cafis ka dalabno sidaasaan ku dhisannay waayo meelaha kale oo dhan ee Soomaaliya way yara kooban yihiin oo inta badan markii la sheego calaamad qoysiga waxbaa lagu sheegaa iyo in yar laakiin tan qof kastoo Soomaaliya dabciisa ku jira garanaya ka shaqeynaya waxaan rabaa inaan iscafino oo tasaamux aan samayno qof kasta oo wax naga tabanaya kuwa mucaarada waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisanno la xaajoonno qancinno waxay ka hadlayaan aan kala hadlo waxaan rabaa kuwii aan soo wada shaqaynay iyo kuwa hadda bannaanka ka jooga wax tabanaya kulligood anu waxaan rabaa inaan cafiyo cid kasta oo wax aan u qabo anna waxaan codsanayaa in la cafiyo qof kasta oo wax iga tirsanaya
horayso madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu ka ogaya waxaan rabnaa inaan dhisno base ama saldhig ama gogol wada tashi oo aan doonayno inay laga ambaqaado ay u noqoto halkani udubkii Soomaalida isu keenisteeda isku duubnideeda wada tashigeeda iyo wanaageeda laga sii ambaqaadi lahaa hadii la hayro waxaan rabnaa in laga shaqeeyo sidii la isugu wadi lahaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo Jubbaland ay u noqon lahayd hooyadii isu wadista iyo isu keenista iyo wada shaqeynta Soomaalida waanan dhigaynaa gogasha haddii ilaahay yidhaahdo waxaana rajaynayaa inay midho dhasho aad baan idiin salaamayaa warkayga waxaan u dhibdigan doonaa khudbadaha dambe soo socda hadda waxay ahayd ujeeddadu mahadcelin iyo mahadnaq laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo Soomaali baa iska leh Soomaaliya danteeda waxay ku gaari kartaa iyadoo oo tashata Soomaaliya xaaladda ay maanta marayso hadday wanaag tahay iyo xumaan tahay iyadaa iska saari karta beesha lixaad roolka ay leedahay waxaa weeyaan wada tashi isu soo jiidjiidis iyo tashiga iyo waxaan u baahanay inay noo fududeeyaan cidday taladu ka go'daay waa Soomaali ilaahay middaa haynugu soo duwo ilaahay taas haynugu soo duwo oo beelo kale yeynaan raadsanina teenni ilaahay hanugu anfaco oo madaxdeenna tu dowlad goboleed iyo tu federaalaba ilaahay ha garansiiyo waxa iyaga ka dhaxeeya cid kale inay la wadaagin aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in saamaxaadu badato waxaan rajaynayaa xildhibaanada labada aqal insha Allah gogol badanna waa la idiin dhigi doonaa waxaan rabaa arrinta galmudug iyo meel kasta wax ka jiraan oo Soomaaliya inaan xalino hadii ilaahay dhoo xalkeeda gaarne xildhibaano mas'uuliyadda idin saarani waa midda maanta la idinka rabo Soomaaliya inaad u guntataan oo aad ka shaqaysaan idinka iyo madaxdiina federaalka isu keenista iyo mideynta dalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka waxaan halkan hadda ka hor ka diray dagaal ka dhacay meel fog oo laba beelood isku laayeen odayaal Soomaaliyeed baan halkan ka diray way tageen oo way ku soo guuleysteen odayaasha dhaqanku xuduud ma laha wax kasta oo jira waayo kan federaalka ee xildhibaanka iyo kan state-ka iyo ka dawladda dhexe inta odayaasha dhaqanka asaaso odayaasha dhaqanku ha ka shaqeeyeen midnimada iyo isku wadista iyo isu keenista Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa inaad muujisaan midnimada iyo gacan isku haynta Soomaaliya oo intii la istaago gacmaha la isqabsado iyadoo la muujinayo midnimada Soomaaliyeed iyo isku wadista iyo taladu inay inaga dhaxaysan